magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland ayaa waxaa maalmihii u dambeeyay ka curtay roobabka guga kaasoo ay mahadiyeen dadka deegaankaasi degan. Inkastoo aanay jirin wax khasaare ah oo ay geystay roobabkaasi ayaa maanta abaaro 5 galabnimo saacada Afrikada Bari ayaa waxa dooxa weyn ee magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland uu qaaday gaari weyn oo ay leedahay hay'adda Miinabaadhista Somaliland oo ay saarnaayeen adhi iyo qalab kale oo muhiim ah. Muddo kadib waxaa goobta soo gaadhay ciidamada qaranka Somaliland oo xidhay guud ahaanba wadooyinka laga tallaabay ee soo gala dooxa weyn ee magaalada Hargeysa. ugu dambeyntii waxaa goobtaasi soo gaadhay mayor ku-xigeenka caasimada Somaliland ee Hargeysa Cabdicasiis Cagaweyne kaasoo ay weheliyeen qaar ka mid ah shaqaalaha dawladda hoose, waxaana ay ugu dambeyntii dadaal badan oo ay sameeyeen kadib ku guuleysteen in gaarigii hay'adda Miinabaadhista Somaliland iyo qalabka muhiimka ah uu sidayba ay si nabadgelyo uga saaraan dooxa weyn ee magaalada Hargeysa. isku soo wada xooriyo markay curtaan roobabka guga ayaa waxay sababaan khasaare nafeed iyo mid maalba.